warbaahinta la hadlay waxa uu adiga iyo safiirka imaaraadka carabta Soomaaliland u qaabilsan idinku ku baaqay inaad iscasishaan arrintaa wuxuu la xidhiidhinayaa shirkadii dhawaan hadalhaynteed soo baxday adiguna aad ka hadashay arrintaas dad aragta bismillahir rahmaanir rahiim horta marka ugu horeysa gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro waana muddo badan isnaqeynay asxaabna nahay waana nin siyaasiya wuxuu doonana wuu oran karaa inkastoo aan filayo markan in tala la siiyay runtii aan sax ahayn oo isagu markaa uu talada ay ku soo jeediyay arrinkan annaku Somaliland waxa uu soo kordhay runtii oo aad iyo aad arrin loogu faano ma aha arrin laga daafaco hadii jeereen kamarooyinka hortooda iyo telefishinka waxay noo soo kordhay oo inoo suurta galay in shirkad ay dawladdu leedahay dad malaha anuu mali baashana malaha dawladda iska leh Somaliland Investment Company baa la yiraahdaa inay nooga suurta gashay inaynu ka diiwaan gelino xarunta maaliyadda ee Dubai caalamiga ah company-gaas oo runtii wax badan inaga caawinaya sidii aynu dhaqmi lahayn caalamka intiisa kale company-gana ma wuxuu hoos yimaadaa maamul ahaan wasaaradda maaliyadda ay hoos yimaadaa company-gu imika ma laha hanti ma laha waa company cusub weeye laakiin waa company noo suurta gelin kara inaan la ganacsano caalamka intiisa kale iyo inaan maalgashiba aynu helo inoo noqdo jid laynoo soo maro dabcan boardka laba qof baa ku qoran waxa ku qoran aniga iyo baasha ku qoran laakiin marka dee la diiwaan gelinayo company meesha doontaba ka diiwaan geli wan magacyo la qadimo wan magacyo la geeyo magacaas waliba weyn ahaadaan kuwo marka dee la baaritaan baa lagu sameeyaa magac walbaba ay suurtagal u tahay marka in la xaqiijiyo marka waxa ku haboon markaas oo kale magaca qof deganba meesha baasha waxa disi waa safiirkeen weeye meeshana deganaa arrinkana ka shaqeeyay arrinkana waxa ka shaqeeyay lawyer ka shaqeeyay waqti badan baa galo lawyer runtii ay galiyeen marka horta magacu waa sidaas waa magac laakiin waliba magaca dee waxa keenay xilka qofku iskama magaciisa iskama qadimeeni xilka keenay marka qofku maadaama uu joogo meeshii company-ga laga diiwaan gelinayay wadankan uu isugu matalayay xilka uu hayay dabcan magaciisa la qadimay anugu halkan ka soo galay waxa weeye maadaama aan hogaamiyay iyo gudoomiyay cidii la galeysay maxaan ilaadaa heshiiska shirkadda maxaa Dubai oo inaga caawisay arrinka runtii aad iyo aad nooga caawisay marka waxaan runtii aan ugu baaqayaa dadka inay soo dhaweeyaan maxaan ilaadaa guusha aynu gaarnay waxaan kaloo kan uga cadeynayaa maaha shirkad loo sameystay in wax lagu xado amba lagu takrifalo maaha taas weeye runtii saa la yiraahdaana waa ceeb weeye waa wax laga xishoodo weeye waa maasintii way wasiireen laba su'aalood ayaan jeclay inaan ku weydiiyo mid waxa weeye adiga iyo safiirka marka laga tago waxa jiraan in magaciisa baan khaldanayn Cabdiraxmaan lagu sheegay in ninkaas ay deegaan dhow isku yihiin waa sida la leeyahay wasiirka hore ee maaliyadda bal warkaasi ma jiraan warka labaad Saad Cali Shire xukuumadii horena waad ka mid ahayd inta badan wasiirada dadku shacabkii ay aad u aaminsan yihiin markaan raayan ururinay ayaad ka mid tahay safiirkii hore imaaraadka dalka wax badan uu keenay dadku sas weyn ayay ka qabaan marka wadada safiirkaasi oo dadku khalad badan u arki jireen saacadna waa ku biiray baa la leeyahay bal hadda war asaar duwan ka jawaabay runtii su'aashaas wax ka khaldan shirkadaas ma jiraan wax ka xumina ma jiraan oo wax runtii la soo dhaweey qofkana maaha in la eedeeyo oo dambile laga dhigo isagaan dambi gelin taasaaba dambiya runtii oo wax laga xishooday weeye waliba in la siyaasadeeyo arrinkan oo kale wax la xishooday shirkadda dadka iskale reer Somaliland idinka iskale idinka idin faa'iido tahay maaha wax ashqaasi ay leedahay wax ashqaasi ku takrifalaysana maaha xoolaha lagu ninsanayaana waxaan jeclaan lahaa qofka walaal xoolaha lagu ninsanaysa loogu ninsanayo inuu dadka u soo bandhigo u sharaxo taasi wax jira ma arrinka xog haynta Cabdiraxmaan company-gu marka la diiwaan gelinayo wuxuu leeyahay guddi amba board iyo xog hayn buu leeyahay marka inanku waxa waa xog haynta
waxaana runtii u ogolaado dikreeto ku magacaabay inuu xilkaa uu hayo madaxweynihii hore oo dikreeto ayuu mataqaanaa ayuu xoghayn uu ku yahay qofka in la yidhaahdo maxaan idhahdaa cid buu ehel laha oo dembi ay u noqoto ehelnimadu taas waxa weeye waa khalad weeye wax dembi isugu sameeyey ma jirto keliya waxa weeye waa xoghaynta shirkadda cusub weeye waana nin shahaadadoodii haystay aqoonsigii maxaa idhahdaa cilmigii looga baahnaa dikreetana lagu magacaabay.